dowladda hadda jirta waa dhaqankeeda waa dhaqan dowladnimo waa dhaqan mooryaannimo oo xaqiiqdi aan aaminsanahay in dadka Soomaaliyeed ay nala arkaan iskana dhiciyaan gudoomiyaha baarlamaanka wuxuu ku ballan furay madaxweynihii hore Cabdullaahi Yuusuf madaxweynihii Sheekh Shariif oo xisbigiisa ka tirsanaa oo aad ku ballan furay xildhibaanada al-shabaab ma aha weligoodna lama shaqeynin dabcan qofka la shaqeeyay unba afkaasi ku hadla Sheekh Aadan wuxuu ku xadgudbay shuruuc badan oo dalka u lahaa xeer hoosaadka waxa ugu horeeyo asagoo danihiisa raadinaya idinku ma ka cabsanaysaan miya amni ahaan in leedin waxyeeleeyo maadaama dhaliilihii dowladda ay sheegtaan magaalada Muqdisho aad joogtaan waa sheegaynaa cabsi naguma jirto madaxweyne Xasan Sheekh baa banaanka taagnaa bismillaahi raxmaani raxiim waxaan wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba meel walba waa joogtaan halkani waa telefishinka RTN waxaad daawanaysaan barnaamijka Gorofeynta RTN barnaamijka waxa aynu diiradda maanta ku saari doonaa wareysi aynu la yeelan doono xildhibaan Saadiq Cabdullaahi Cabdi oo aynu wax ka weydiin doono xaaladihii ugu dambeeyay dalka gaar ahaan xasaanadii uu waajay xildhibaan Cabdullaahi Xaashi Abiib oo maalinkii shalay uu gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya uu sheegay in gabi ahaanba uu xildhibaanku xasaanadiisii dumiyay marka hore waan kusoo dhaweynayaa xildhibaan Saadiq waxaad ka mid tahay xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya intaanay u guda galin ka hor cidda awoodda u leh xilka qaadistiisa goorma ayuu xildhibaanku xasaanadiisu dumin karaana بسم الله الرحمن الرحيم markuu ugu horeysa diirsha adiga iyo telefishinka RTN dhamaantiin waa idin salaamaya horta inta aan su'aashaada jawaabteeda u bixin waxaan rabaa inaan ku sheego xildhibaanada golaha shacabka waxay ka kooban 275 oo ay ku jiraan gudoonka saddexda xubnooda marka gudoonku waxa loo doortay inay hogaamiyaan ama shir gudoonka si waafaqsan dastuurka iyo xeerarka dalka waxaan haysanaa dastuurkaas waxaanu leenahay xeer hoosaadka golaha baarlamaanka oo 10aad markastana dib habeen baa lagu sameeyaa marka laga hadlayo xasaanada xildhibaan horta xildhibaanku waxa uu matalaa dad iyo deegaan waxaana runtii arin xasaanadiisa qeexaya qodobka 7aad ee dastuurka xilka qaadistiisa iyo nidaamkiisana sifada loo marayo oo dhan xeer hoosaadka iyo dastuurka ay ku qoran yihiin gudoomiyaha waajibaadkiisa ama awoodihiisa waxay ku xusan yihiin qodobka 14aad ee xeer hoosaadka golaheena iyo dastuurka buu ku xusan marka gudoomiyaha 13 qodob ayaa muxuu ahaa ku saabsan arintaas ayuu qeexay meel ay kaga jirto inuu xildhibaan xasaanadiisu waayi karo kuma jirto xildhibaanku xasaanadiisu wuxuu waayi karaa marka xildhibaanku wuxuu ku waayi karaa xasaanadiisu markuu laba kala fadhi maqnaado sidoo ay sheegeen laakiin sabab macquula oo aan ahayn go'aan maamul iyo go'aan gudoon midna go'aankaas waxa iska leh golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya marka qodobka waa codsaday 59aad batata qodobkaasi gudoomiyaha waa ku xadgudbay asagana malaha awoodiisa maamulna ma aha waxa uu galay gef waliba uu ku xadgudbay xeer hoosaadka iyo dastuurka dalka marka xildhibaanku haduu geeriyoodo hadii uu istiqaalad keeno hadii uu asaga sabab la'aan isaga tago iyo hadii uu laba kala fadhi maqnaado cudur daar la'aan oo laakiin sababtaas ay golaha leeyihiin in golaha la keeno sida labada qodobka 7aad ee dastuurkeena uu qoraayo oo lala akhriyay qodobka 9aad xeer hoosaadkeen fardiisa shalaad marka intaba ma waafaqsana wuxuu talaabadu qaaday gudoomiyuhu wuxuu ku dhacay gef sharci ah oo markaasi uu madan doono ciqaabtiisa dhawaan insha Allah in la ciqaabayo dabcan salo ciqaabaya gudoomiyaha anagu wuxuu nagu gudoomiyaa si waafaqsan xeerarka dalka dastuurka iyo xeer hoosaadka golaha wuxuu balmaray labadii xeer oo lagu doortay wuxuuna sameeyay ku takrifal awoodeed oo waliba qodobka muxuu ahaa 14aad qodobka waxaan u maleynayaa qodobka 17aad xarafkiisa D ayaa sheegay gudoomiyaha hadii wuxuu xil ku weyn karo ah hadii uu ku xadgudbo xeer hoosaadka diinta islaamka iyo dastuurka dalka marka wuxuu ku xadgudbay qodob kamid ah xeer hoosaadka horeyna qodobo badan oo xeer hoosaadka iyo dastuurka ay ku xadgudbay waa tahay xildhibaanka waayo cidda xaq u leh inay xasaanadiisu ka qaado ama xasaanadu ay kala laabato ya xaq u leh sida ay xeerarkeenu qabaan qodobka 7aad ee dastuurka golaha ayuu sheegaya qodobka 9aad ee xeer hoosaadkeena fakradiisa 5aadna wuxuu sheegayaa isla golaha oo markaasi cod marka la keeno golaha loo keeno cod 3 dalool 2 dalool marka golaha ayaa iska leh labada qodobka 7aad oo golaha guud ahaan sheegay oo lala akhriyay qodobka 9aad ee xeer hoosaadkeena fakradiisa 5aad oo sheegaya in xildhibaanka marka uu xildhibaanku xilku waayi karo 2/3 xubnaha golaha baarlamaanka taana ma dhicin gudoonka qol mugdi ah ayuu sidii dhaqankiisa ahaaba sameeyay waxa ayaan darro ah oo dadka Soomaaliyeed aan rabaa inaan u sheego xilliyada uu baarlamaanku xiran yahay ama fasax uu ku jiro waxa mamnuuc ah inuu gudoonku howlo ka baxsan howl maalmeedka caadiga ah ee baarlamaanku qabto
haddii arrimo masiiri ah ama xildhibaanada taabanaya waa waajib in xildhibaanada loo yeero taana ma suubin guddoonka mar allaale markii ay xildhibaanadu fasax ku maqan yihiin ayuu waxa uu sameeyaa wax allaale wixii musuq maasuqa isdabamarina iyo tusaale ahaana waxaan ku siinayaa kalfadhiyadii lasoo dhaafo oo dhan waxaa aniga hadda aan hayaa in ciidankii booliiska ee ay lahaayeen muxuu ahaa police macna VIP protection waa askartii xildhibaanada ay wada lahaayeen oo 110 iyo xooga ahayd 54 kamida gudoomiyaha inta uu kala diray ayuu dad reerihiisa ah ama jifadiisa hoose abaadiye kasoo aruuriyay baarlamaanka uu keenay ciidamadaas maxay ahaayeen kuwa uu sakeeyay maxay ahaayeen ciidamadii hore ee baarlamaanka oo lahaa baarlamaankii 9aad soo shaqeeyeen 10aad soo shaqeeyeen waxay kala kasaayeen wadooyinka soo gala baarlamaanka xildhibaanada ay kala kasaayeen baabuurtooda ay kasaayeen wada kastay taagan xildhibaanada lagu xadgudbayo oo dhan iyaga meesha uu wada taagnaa oo askarta iyo xildhibaanada u dhaxeeyay wuxuu keenay 54 askara oo qaarkood goosta lacagtooda uu qaato qaarkoodna ay yihiin muxuu ahaa dad jif ahaan isaga xiga oo aan baarlamaanka u dhaxin marka baarlamaanka amnigiisa dhibma kala kulantaan aad u weyn waxa meesha jooga waa jifo oo hoosaadka u badan gudoomiyaha baarlamaanka dib baan kala kulanaa waxaan kala kulanaa markii aan baarlamaanka joogno gudaha baarlamaankan way soo galaan oo xildhibaanadu u adeegsadaan marka xero geel ayuu ka dhigay golihii gudoomiyaha adag taa wuxuu sameeyay xadgudubka wuxuu sameeyay xildhibaanada oo fasax ku maqan si lamida gudiyada xildhibaanadu marka ay maalintooda koowaad ay diiwaan gelinta sameynayaan nin kasta wuxuu qortaa gudiyo qortaa gudiga maaliyaddu qortaa mar ama ku xigeen kale qortaa saddex option buu leeyahay saddexdii option waxaan ahayn ayuu sameeyay xildhibaanada oo fasax ku jiray wuxuu sameeyay intaasoo la taliyaal sharci darro ah baasaboorro oo muxuu ahaa boqolaal gaaray oo qaarkood tahriibeen oo suuqyada wada jooga ayuu sameeyay waxaa kaloo uu sameeyay xogihii baarlamaanka u dhaxeeyay ayuu bedelay nin baarlamaanka dhismihiisa qayb ka ahaa asagoo dana dhaqaale ka raadinaya oo markaas ciidamadan wax badan isku haystay intuu bedelay ayuu hadda ninka jooga uu keenay oo musuq maasuqa iyo waxyaabaha la falkinayo dhan kala shaqeeya oo xogayaha guud ee golaha oo aan haynin inaan golaha u dhaxeyn oo musuqa baarlamaanka socda koow ah si lamida wuxuu wax ka bedelay xeer hoosaadkii golaha iyadoo wixii ay baarlamaanku ku heshiiyeen wax ka duwan xogayaha guud waxaanu anagu ahayd habdhowraha baarlamaanka wuxuu ahaa 10 xildhibaan inay muxuu ah xilka qaadi karto ama soo jeedin karto hadda xogayaha baarlamaanka 75 xubnood hatta ra'iisul wasaaraha waa ka sareeya si ay isula qaraabtaan isula shaqeystaan arintaa u dhacday arintaana gudoomiyaha ka shaqeeyay mar allaala markii la daabacay arinta marka sheekh aadan wuxuu ku xadgudbay shuruuc badan oo dalka u lahaa xeer hoosaadka waxa ugu horeeyo asagoo danihiisa raadinay sheekh aadan kalfadhigii hore ee tarankiisii hore dabcan wuxuu galay dambiye sidaan oo kale ah asaga oo taagan ayaa xilka laga qaado xildhibaanadu waa ku ooriyeen sababo uu sameeyay inuusan sharciga iyo xeerarka iyo nidaamka la ka siin marka si lamida wuxuu u bareeray marka xildhibaan qaran oo kalfadhigii afraad joogay kulamadiisii hore waa joogay arrintii miisaaniyadii buu ka dooday wuu fadhiyaa videogiis waa yaala hadduu maqan yahayna wuxuu maqnaa kalfadhigii shanaad kan kalfadhigan la sheegayo oo kalfadhiga lixaad waxaan kuu sheegayaa sida xeerkeenu qabo 4 bilood ayuu kalfadhigu furnaanayaa oo 2 jeer sanadkii iyo 2 jeer oo min laba bilooda gudoomiyuhu ajandayaashii shirtikii ama jadwalkii xiliyadu baarlamaanka furmaayay xilmaayo oo dhan waa ku xadgudbay waxaad arkaysaa in kalfadhigan ay ahayd in la furmo inuu furmo February 6deeda maantana la joogo March oo almost muxuu ahaa waxa la shaqeeyay ay la wig yihiin wuxuuna furan yahay muddo kan marka xadgudub oo dastuuri ay xeeraas oo gal marka sidaas darteed ayuu qodobka 17aad farqadiisa dib gudoomiyaha ugu xadgudbay watahay xildhibaan Saadiq Cabdullaahi markii koowaad ma ahaan ka maqlayo in gudoomiyuhu golaha shacabka xadgudub uu sameeyay adigana ma ahaan xildhibaano badan maalin walba sheegta xadgudubkan soo noqnoqday maalin walba sheegta in talaabo laga qaadayo waxna aanay isbedelin gudoomiyuhu waxa ka bedeli kartaa miyaa go'aamada uu sameeyo wal gudoomiyuhu wuxuu ku mid hay'adii fulinta hay'adii fulintan waxa ay bixisaa imkaaniyaad xildhibaanada waxa lagu hayaa lacago tigidha lagu hayaa waxa lagu hayaa wax allaala wixii imkaaniyaad 130 xildhibaan ayaa ku jirta muxuu ah category oo aan runtii aan u fiicnayn baarlamaanka sharafkiisa karaamisna halkan ka sheego waxaa jira dad lagu cabsigelin lagu hayo dad oo kuraastooda maadaama kuraasta qaarkood meeshan lagu doorto inay way doonayaan kuraastooda haday banaanka soo dhigaan marka waxyaabo badan oo aan rabin meeshan ka sheego ayaa filada iyo gudoonkooba ay ka wada shaqeynayaan gudoomiyuhu wuxuu danaynayaa kaliya imkaaniyaadkaas dhaqaale oo meesha ka soo baxay maadaama uu ogyahay inuu oday da'yahay markii labaad uu yimaaday aqoontiisa iyo kartidiisa hogaamineed aad u liidato inuu markaa uu rabo inuu kaliya tirada ka soo horjeeda golaha shacab tirada gudoomiyaha ka soo horjeedo xildhibaanadiina awood mu leedin miyaa talaabo kaga qaadaan isaga maadaama hadda sheegtay xildhibaanada badi inay golay fulinta ay wax siiyaan dabcan hadda xadgudubku wuxuu gaaray inuu taabto muxuu ahaa inuu awood uusan lahayn
oo ka baxsan waxyaabihii xeer hoosaadka inuu ku xadgudbay inuu xildhibaan xasaanada ka qaado taasoo ah mid ay xildhibaanadii aad arkaysa 106 hal maalin ay digniintaasayto oo burinta aan soo saareen haddana waxaa socda mooshinkiisa waxaan filayaa kal fadhiga marka uu furmo gudoomiye aadan inuu golaha hogaamiyo inaan laba baarlamaan kala noqon inaan kala doorano taasna waxaad arki doontaa markuu baarlamaanka furmo gudoomiye aadan madoobe dabcan sidee xilka looga qaadi karaana wel waxaa sheegaya dastuurka iyo xeer hoosaadka golaha sheegaya gudoomiyaha 93 xubnood ayaa keeni karta mooshinkiisa waxaana ka qaadaysa 3 dalool laba meelood 184 aadan maxamed nuur aadan madoobe mooshinkiisa haddii uu maanta la saxiixo waxaan hubaa inuu aadan hal xildhibaan oo aadan ku qanacsan hogaamintiisa iyo sid xadgudubadiisa ma jiro xataa kuwa imkaaniyaadka beenta ah la siiyo marka aadan waxaan aaminsanahay meeshii ugu dambeysay ee xildhibaanadu aysan ka soo noqonin isagaa gaarsiiyey waana tuu ku bixi lahaa waa tahay aanu kan imaano halkaasi xildhibaan cabdulaahi xaashi abiib dabcan maxaa isaga dhibana ka dhigay iyadoo aad sheegteen in xildhibaano badani ay kalfadhiyaashu maqan yihiin kuwa kale maxaana loo arkin inuu xildhibaan wel waxa culays ku hayo waxa culays ku hayo waa xildhibaanada critics-ka ah oo dhaliilaha dawladda banaanka la soo taagan ayaa dhibaato ku haya dabcan abiib waa iman lahaa laakiin abiib caqabado badan oo uu kala kulmay xubno kamid ah kuwii uu dhaliilaha ka sheegi jiray darteed amnigeeda ayuu banaanka u joogay gudoomiyaha wuxuu ka codsaday in warqad qoraal ah oo amnigiisa damaanad qaadaya usoo dirso u yimaado maadaama xildhibaano golaha ku jiro oo iyo kuwo kaleba oo banaanka jooga ay handadaad toosa ay u direen cabashadaas gudoonku usoo gudbiyey waana ay ka diideen dabcan labada kalfe ay ku eedeeyeen labada kalfadhi inuu maqan yahay ay ku eedeeyeen dad badan baa maqan baarlamaanka waxaad goobjoog u tihiin marar badan ayuu furmay isagoo koramkiisa aanan muxuu ahaa dhammayn inta la sheegana uma dhexayn wax ka badan 140 iyo 139 ayuu dhexay 141 142 143 marka golaha runtii maalintii la rabana waa la furaa ayadoo koram joogin maalintii koram uu joogana koram ma jooga la yiraahdaa waxa meesha ka socda waxa waaye wax runtii marar badan aan sheegnay mar raba inaan ku celceliyo laakiin waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegayaa baarlamaanka inaad joogto inaad maqan tahay waa isku mid inaad codayso inaadan codayn waa isku mid inaad muxuu ahaa hadal jeedin samayso inaadan samayn waa isku mid inaad muxuu ahaa sharci keento iyo inaad mooshin keento waa isku mid go'aanada baarlamaanka oo dhan waa go'aano laga soo manguuriyo ama laga soo diro villa Soomaaliya oo gudoomiyahana ay u soo marsiyaan niman dalaalay ah oo gudoomiyaha hoos fadhiya villa Soomaaliya waxa la jeedaa madaxtooyada iyo xukuumadda madaxtooyada iyo laanta fulinta loo jeedaa laanta fulinta guud ahaan xildhibaanada sheegteen inaanay soo xaadirin laakiin aan sida abiib oo kale iyaga loo qabsanin wax ma nooga sheegi kartaa xildhibaanada fadhiga mar raba inaan xildhibaanada kolleegayga saaxiibadooda magacooda sheego baarlamaanka kaamara jaalla maalin kasta waa joogan 145 iyo 5 xildhibaan markay 3 sano joogan waxa maqan half kamada 140 kala maqan ama aan cid la hadlin markii doonaan imaadaan qaarkood tigidha la siiyaa oo iska baxa la yiraahdaa oo dhaqaale kala waliba si gooni maalintii loo baahdaa diyaarada loo diraa loo keena marka baarlamaanka inuu xirnaado iyagaaba ka shaqeynaa oo xildhibaan because gudoonka laftigiisa baarlamaanka tirada badan yimaadaan number 1 capacity-ga hallka ma qaadayo number 2 yani sidaad ka wareysaan mar badan ku soo celiyo capacity-ga ama hallka tirada uu qaadi karo 220 kama badan oo ay soo fadhiyaan dad aan shaqaale ahayn oo u badan dhar cabda aan ku sheegayo iyo niman aan xildhibaan ahayn marar badan waxa ka hadashay ciidamo dhar cad inay ku jiraan golaha shacabka baarlamaanka dadka qaarkii waxay sheegeen ciidamada soo galaya golaha inay waardiye u yihiin ama ilaalo gaar u yihiin wasiirada meesha imaanaya ciidankaas idinku cabsi badan ka muujiseen ma idinka idinku handadaana wal dabcan marar badan baa ciidan loo adeegsaday waxa inaan kuu sheego ciidamada joogtay u joogaan baarlamaanka ay fadhiyaan labadiisa gees ay fadhiyaan muxuu ahaa meelaha dhexe ay fadhiyaan intaas oo dhan waxay u joogaan codadkan inay kula daataan haday dhibaato imaatana ay dhinacooda muxuu ka geystaan marka annaga amnigeena qatar ugu jirnaa xataa dokumentiyada aan meesha uga tagayno marka qaar xildhibaanana buugteena uga tagnaa saacadeen uga tagnaa okiyaalasheena uga tagnaa qaarkeen mobiiladeena uga tagnaa intaasba qatar ba aan ka dareynaa waxaan marka aan aaminsanahay marar badan ku celceliyay in laga saaro gudoomiyaha waa ka dhiga adeegay waana u bareeray inuu sharci darrada isku joogo marka gudoomiyuhu ugu talagalay 4 sano inuu baarlamaanka sidaan kula joogno laakiin marka la soo noqday war noo yaala insha Allah xildhibaan Cabdulaahi xaashi abiib dabcan waxa uu sheegay in amnigiisa halis uu ku jiro sabab la xiriirta in uu madaxweynaha badanaa ama dawladda masuuqa ka jira uu badanaa sheego hay'adaha caalamiga ugu gudbiyo idinku ma ka cabsanaysaan miya amni ahaan in leedin waxyeeleeyo maadaama dhaliilii dawladda aad sheegtaan magaalada Muqdisho aad joogtaan aniga horta waxa aan difaacaya ma aha abiib iyo xildhibaan kale waxaan difaacayaa xeerarka iyo nidaamka loo